qaar ka mid ah culimada ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn oo sanad walba bishan oo kale xusa dhalashada nabigeena suuban nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee ayaa xalay munaasabad ballaaran ay ku weyneynayaan dhalashada nabigeena waxay ku qabteen magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn iyagoona munaasabad si weyn loo soo agaasimay ay ka dhacdeen masjidka culimadaasi ay ku leedahay gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. qaar ka mid ah culimada ayaa markii ay soo gabagabowday munaasabadaasi la hadlay warbaahinta salliga la qaadi wuxuu ahaa siirada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam culimada ahlu sunna wal jamaa meel ay joogtaba Soomaaliya koonka Nairobi Itoobiya Djibouti meel kasta waa laga dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam annana sidaas najiga baa Soomaaliya ugu weynayna uga soo dhaweeyna rasuulka waana taariikhda islaam qof kasta oo islaamana waxa waajib ku ah inuu weyneeyo oo qadariyo rasuulka calayhi marka qof kasta oo islaama inuu weyneeyo rasuulka weyneeyo oo u soomay isagoo qadarinaya maalinka uu dhashay. si kastaba ha ahaatee xuskan ay xalay u sameeyeen dhalashada nabigeena culimada ku dhaqan magaalada Buuhoodle qaarkood ayaa ku soo aadaysa iyadoo meelo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya iyo dunida caalamka qaarkeedba looga dabaaldegayo dhalashada nabigeena suuban nabad iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee. Ahmed Mohamed Nadiif Royal TV Buuhoodle.